بسم الله الرحمن الرحيم. horta doorashada dibdhicida cid iyo waqtiga la qabanaya cid buu sharcigu siiyay cidaas ma ka hadli karta waa komishanka doorashooyinka iyaga sharcigu siiyay inay cayimaan maalinta doorashada la qabanayo hadday soo hormarayso hadday dib u dhacayso komishanka awoodaan anagu faragelin weyn laakiin xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxaanu cadaynaynaa wixii hawl ahaa ee ku xidhnaa iyaga ee doorashada ku saabsanaa inaanu dhammaynay hadday sharcigi tahay waa dhammaynay komishanka waa la magacaabay dhaqaalihii waa la sameeyey markaa xagga doorashada annaga wax nagaga laabanay ma jiro waqtigana komishanka ale gudoomiye waxaa jirta warbaahintu waxay baahisay oo la sheegaya in adiga iyo xubno siyaasiyiin oo isku deegaanka ka soo jeedaan abla kulantada madaxweynaha Soomaaliya siilaan idin sheegay inuu ka tanaasulay musharaxnimadii idinka dib ugu celiyay maxaa ka jawaabkaas shir aan joogay oo ogahay oo madaxweynuhu yiri arrintaa waan ka tanaasulay ama go'aanka uu ka sheegay haba yaraatee ma jiro warkaasi ma jira ma meel aan joogo arrintaa lagu soo qaadana ma jirto sideedana arrintaasi ma jirto warkaasi waa waran jiray wadii karta in dib la isku noqdo oo shaqada taasi dee yaa yaqaan calamin qaybka waxay doonayaan warhaya su'aal baad weydiiso arrintaasi ma jirtaa shirkaasi ma jirin goobta ma joogin odaguna ma oran waxa la magacaabay komishanka doorashooyinka Soomaaliya toddoba xubnood waxa la sheegay xisbiga kulmiye xukuumaduba xoogaa sasan ka qaaday xubnaha cusub la magacaabay kalsoonida ka qabtaa in ay noqon komishanka habash sheegay waxaan saas ka qaaday xubnaha sharciga qaybisa loo soo magacaabo horta saddex madaxweynaha soo magacaabo inta u badan labana wax keenay qolada la yiraahdo gurtida labana wax keenay mucaaradka waa sidii ahaan jirtay dad muddo kale rag iyo dumar leh oo badankooda wada garanayo oo mas'uuliina oo hawsha qaban kara way waan ku kalsoon